asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dadkana daawanaya halkan waa barteena facebook iyo weliba youtube ee galka media habeen wanaagsan isku soo noqod wanaagsan waan rajaynaya adigoo caafimaad qaba inaad halkan iga daawanayso waa tahay waxaan caawa doonaynaa inaan halkan idinkugu soo gudbino wada hadal goor dambe markaa dhex maray dhinacyada dowladaha etoobiya soomaaliya eritrea maxaad kala socotaa sida uu qorshuhu yahay dhinacyada etoobiya waxa ay ka codsatay eritrea iyo soomaaliya madaxweyne farmaajo go-aan ceynkii ayuu ka qaadan doonaa xiisada diblomaasiyadeed ee xilligan markaa ka taagan dhinaca magaalada addis ababa cabaadka xilligan ka yeeraya ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya doctor abiy axmed cali oo xilligan xafiiska farmaajo si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyadiisa soomaaliya suuragal ma tahay inay ciidamo ku caawiso ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya doctor abiy axmed cali warar arinkaasi la xiriira iyo weliba xogo deg deg ahi oo caawana soo gaaraya ayaan halkan toos doonaynaa inaan idinkula wadaagno daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa in aada noo soo buuxisaan koramka sidoo kale aada sheer garaysaan muuqaalka lana sii wadaagtaan saaxiibadiina kale barteena youtube ee galka mediana waan rajaynaynaa in aada markaasi rukuman doontaan waa tahay sida caawa labadiida dhinacba ka muuqata waa asiyaasa afweyki iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya qeybta dhexena waxaa ku jira madaxweyne farmaajo dhinacyada waxaa maanta dhex maray wada hadal ku saabsan sida ay xiisada etoobiya kusoo cusbanaatay ee dhinaca t b l f go-aanka rasmiga ahi laga qaadan lahaa dhinacyada dowladaha markaa horay ugu bahoobay arrimaha saddex geesoodka waxaa la yidhaahdo oo dhinacyada ka dhexeyn jiray etoobiya eritrea iyo soomaaliya maxaad ka og tahay xilligan safarka qarsoodiga uu ku tegayo madaxweyne farmaajo magaalada addis ababa asiyaasa afweyki go-aan ceynkee ayuu qaatay wada hadalka inta uu socdayna waxaan idinkaga haynaa xogo deg deg ahi sida aada la socotaan maalmahan dambe t b l f waxa ay si weyna ugu xoogeysanaysay oo looga cabsi qabay in ay la wareegto magaalada caasimadda ee addis ababa iyadoona xilligan cadaadiskii ugu weynaa ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya doctor abiy axmed cali uu ka wajahayay dhinaca t b l f ama tigreega waxaa lagu magacaabo oo iyagu doonayo in ay isballaarsi iyo weliba guud ahaanba ay la wareegaan wadanka etoobiya xaaladda wadanka etoobiya oo allow sahal ku jirta qaybihii ugu badnaa oo dadka ka barakacay magaalooyin waaweyn oo addis ababa ay ku jirto oo xilligan macluul ba-ani laga soo sheegayo xaaladaha kale ee iminka isa soo taraya waxaa qeyb ka ahi in ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya doctor abiy axmed cali uu soomaaliya ka codsaday in ay ku taageeraan ciidamo oo markaa kala qeyb qaata dagaalka adag oo xilligan kula jiro kooxaha tigreega ama t b l f ka dhinacyo badan oo muhiim ahi oo kulamada qadka teleefonka ku dhex maray gaar ahaan dhanka villa soomaaliya waxaa laga soo wariyey in uusan go-aan weli qaadan madaxweyne farmaajo balse ay u badan tahay kadib marka ay isugu yimaadaan shirka saddex geesoodka in soomaaliya ay qaadan doonto mowqif cad farmaajo waxa uu sidoo kale amar culus duldhigay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo laga cabsi qabo in ay go-aano dhexdhexaad ah ee arrinkaasi ka soo saarto maadaama ra-iisul wasaare roble saacadihii aynu ka soo gudubnayna kulamo arrinkaasi looga hadlayo u waday arrinkan haddii uu farmaajo garab istaag u muujiyo ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya doctor abiy axmed cali waxa ay mar kale dib usoo cusboonaysiin kartaa khilaafka horay heshiiska looga gaaray ee ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen roble iyo sidoo kale dhinaca madaxweyne farmaajo oo maalmihii dambe si aad ah wada shaqayntooda ay usoo noqotay balse farmaajo oo xilligan ay ku jirto laba daran mid dooro ayaa laga soo wariyey in uu xilligan ilaalinayo khilaafka kaga imaan kara dhinaca xafiiska ra-iisul wasaare roble iyo saaxiibkiis oo uusan war cad ah siini karin oo ah inaysan dagaalka ka qeyb qaadan karin warar xog ogaal ah ayaa sidoo kale waxa ay caawa tibaaxayaan in dhinacyada maalinka sabtida ay markaa isugu tagaan magaalada caasimadda ee addis ababa oo ay kaga wada hadlayaan xaaladan t b l f markaa ka soo wajahday dowladda etoobiya dhinacyo badan oo aan xiriiro kala duwan la sameynay caawa waxa ay xaqiijiyeen in kadib marka la isugu tago addis ababa uu madaxweyne farmaajo qaadan doono go-aan dhexdhexaadnimo oo ku saabsan sidii wada hadal lala furi lahaa kooxaha tigreega ama t b l f oo iyagu doonayo inay xilligan
guud ahaanba qadka ka saaraan ra-iisul wasaare doctor abiy axmed cali oo ay ku eedeeyeen in uu xilligan wado guud ahaanba sidii uu ciribtiri lahaa t b l f haddaba dagaalkan etoobiya ka soo cusboonaaday iyo guud ahaanba xaaladda etoobiya oo xilligan markaa arrimo badan ay isugu darsameen waxaa markaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay xilligan leeyihiin guud ahaanba waxa ay etoobiya qarka u saaran tahay in ay la mid noqoto wadamada libiya iyo weliba dhinaca iyo weliba syriya oo iyagu xaaladan oo kale horay usoo maray ilaa iyo haddana markaa ay ka jirto waa tahay madaxweyne farmaajo waxaa caawa laga soo wariyey in guud ahaanba xiisadan ka soo cusboonaatay waddanka etoobiya uu sidoo kale saameynta ugu weyn ka cabsi qabo inay isagu markaa ku yeelato arrimihiisa dib u doorashada abi waxa uu duldhigay waxaan kaa doonayaa garab waxaan kaa doonayaa inaad ii noqoto garab iyo gaashaan balse dhinacyo badan oo aan caawa xiriiro kala duwan la sameynay ilaa iyo hadda macda go-aanka uu qaadan doono madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano aynu ka soo gudubnay abi farmaajo iyo asiyaasa afweyka waxay ahaayeen saaxiibo dhow ah horeyna heshiisyo qarsoodi ah oo dadka soomaaliyeed aan loo soo bandhigin dhanka soomaaliya ay u wada galeen heshiisyadaasi waxaa qayb ka ahaa inay isu taageeraan wax walba oo markaa dalalkooda ka soo kordha ay noqdaan wadaag dhareer waxa loo yaqaano oo guud ahaanba ay markaa wax walba ay iska caawiyaan dhinacyada xogihii ugu dambeeyey caawa galka miidiya soo gaaraya waxa ay sheegayaan in kooxaha t b l f saraakiishooda hogaaminaysa ay ka digayaan in soomaaliya aysan ku lug yeelan dagaalka ka socda waddanka etoobiya maadaama eritrea horey loogu eedeeyey inay iyadu markaa u xuybsiibatay dagaalkaasi garab istaagna ay u muujiso ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed cali asiyaasa afweyka caawa waxaa laga cabsi qabaa inuu ciidamo u diro magaalada caasimadda ah ee adis ababa kadib markii abi uu sheegay in guud ahaanba magaaladaasi ay qarka u saaran tahay in ay la wareegaan kooxaha t b l f ta haddaba sida aada la socotaan horey waxaan idinla wadaagnay in ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed cali saacado kooban uu ka maqnaa magaaladaasi oo aan la soo warin dalka u aaday iyo halka uu jihaystay balse muddo kadib saacado gudahooda waxaa la sheegay inuu ku soo noqday magaalada adis ababa halkaas oo uu maanta xafiiskiisa qadka telefonka ama waxa loo yaqaano call group ay ku wada hadleen saddexda dal ee asiyaasa afweyki oo eritrea ah soomaaliya oo maxamed cabdullaahi farmaajo ah iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed cali oo isagu wicitaankaasi lahaa sida ay xogaha caawa galka soo gaaraya ay tibaaxayaan xaaladda waddanka etoobiya siyaasiyiin badan oo rugcadda ahi ayaa iyaguna waxa ay xilligan u ololeynayaan sidii qadka looga turi lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed cali inta badan xogaha caawana soo gaaraya waxaa sidoo kale qayb ka ah in shirkaasi saddex geesoodka haddii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka qayb galo ay dhalin karto tuhum badan iyo heshiisyadii qarsoodiga ahaa ee dhinacyada ay markaa horay u wada galeen dadka soomaaliyeedna waxaa u caddaanaysa in guud ahaanba arrimaha siyaasadda waddanka etoobiya uu saameyn iyo weliba lug weyn uu ku leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddaba arrimaha doorashooyinka ee socdaayey dagaalka etoobiya saameyn caynkee ahi ayay ku yeelan karaan soomaaliya sida ay xogaha caawa tibaaxayaan dhinacyo badan oo siyaasiyiin ah oo arrintan falanqeeyana waxa ay inoo xaqiijiyeen in guud ahaanba xaaladdan ay tahay mid markaa faraha ka sii bixi karto haddii soomaaliya aysan mowqif dhexdhexaad ah ka qaadanna waxa ay ku yeelan doontaa ayaa la leeyahay saameyn togan iyo weliba toban sida ay dhinacyo badan xaqiijinayaan xaalku waa adag yahay dadkii hore ugu barakacayna magaalooyin waaweyn oo adis ababa ay qayb ka tahayna waxaa la soo warinayaa inay macluul ba-ani xilligan u geeriyoonayaan dhinacyada qaramada midoobey gaar ahaan waaxda markaasi arrimaha bini aadamnimada u qaabilsan ee oja waxaa laga soo xigtay in ay sheegeen in xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed cali ay hortaagan tahay in gargaar bini aadanimo lala gaaro dadkaasi horey waddanka etoobiya bilooyin ka hor waxaa uga taagnaa abaaro ba-an oo ku dhuftay qayb ahaanba guud ahaanba waddankaasi aan idhaahdee ayaa xilligan
waxaa markaasi lasoo warinayaa in ay xilligan uga sii dartayba dagaalka TPLF ay ku qaaday magaalooyin waaweyn oo Addis Ababa ay ka mid tahay. siyaasiyiin iyo dad aqoon-yahano oo markaa u dhashay waddanka Ethiopia waxa ay soo bandhigeen qariirad guud oo ay markaa kaga hadlayaan saameynta dagaalkan iyo halka uu ku dambeyn doono. dhinacyo badan oo aan xiriiro kala duwan la sameynay waxa ay dhankooda xaqiijiyeen in guud ahaanba xaaladan haddii saacadaha soo socda wada hadal aan lala furin dhinacyada TPLF saameyntii ugu xooganayd ay ku reebi doonto dowladda waddanka Ethiopia. wasiiro badan ayaa la sheegay inay horey magaalada uga baxeen balse xilligan ay markaa ku soo laabteen. ciidamada dowladda federaaliga ee ka amar qaatay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waxaa dhankooda laga soo wariyey in guud ahaanba xilligan hub urursigii ugu weynaa ay wadaan. diyaarado ayaa la sheegay in lagu kiciyey qaybaha ay xilligan markaa kaga soo ugaarsanayaan magaalada caasimadda ah ee TPLF. kooxahooda waxaa la sheegay in jab xoogan lagu gaarsiiyey dagaal saacadihii aynu ka soo gudubnay dhacay. qaybo badan oo ka mid ah waddanka Ethiopia waxaa la soo warinayaa in isgaarsiinta iyo qadka internetkaba ay markaa ka maqan tahay maadaama dowladda Ethiopia ay ku adkaysanayso inay xogaha waddanka aysan bixin. dhinacyo badan oo ku sugan Soomaaliyeed dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia ee Jigjiga waxa ay soo warinayaan in saameyn aad u xoogan ay ku yeesheen dagaalada waddanka Ethiopia ka soo cusboonaaday. xaalku waa adag yahay. madaxweyne Farmaajo weli lagama soo warin go-aan rasmi ahi oo uu qaadan karo balse xogaha waxa ay tilmaamayaan haddii uu ku adkaysto inuu mowqifkan dhexdhexaad ka noqdo isagoo ilaalinaya khilaafka markaa kala dhalan kara dhinaca ra-iisul wasaare Roble. waxaa la leeyahay siyaasa Afwerki waxaa macquul ah in ciidamada Soomaaliyeed ee Eritrea ku sugan uu u adeegsado dagaalkaasi isaga oo aan wax amar qaadashaha markaa aan samayn. dhinacyada xaaladooda laga soo warinayo waxaa qayb ka ah in guud ahaanba xilligan xaalku uu yahay mid markaa guud ahaanba laga dayrinayo ee waddanka Ethiopia. Abiy, Farmaajo iyo sidoo kale siyaasa Afwerki waxaa lagu wadaa in maalinimada Sabtida ay kulan wada qaataan. Farmaajona gelinka dambe ee berrito Jimcaha waxaa la filayaa inuu u safro Addis Ababa balse safarkaasi waxa uu noqon doonaa mid dadka Soomaaliyeed laga qarinayo sida ay xoguhu tilmaamayaan. haddii uu tago Addis Ababa sidoo kalena dagaalka uu sii xoogaysto suuragal ma tahay in uu shirkaasi qabsoomo. dhinacyo badan waxa ay leeyihiin waxa uu ku qabsoomi karaa haddii laga baaqsan waayo in guud ahaanba dhinacyada ay halkaasi isugu tagaan. Farmaajo waxa uu noqon doonaa mid si toos ah aaladda fogaan aragga uga qayb gala kulankaasi balse maxaa isaga xilligan u qorshe ahi haddii kulankaasi labada dhinacba uga qayb galo. sida ay xoguhu tilmaamayaan waxa uu qaadan doonaa dowr dhexdhexaadin ahi sida horey u dhacdayba uu isugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaare Abiy Ahmed Cali iyo xukuumadda Eritrea ee siyaasa Afwerki uu hoggaanka u hayo. dhinacyadan horey waxay ugu heshiiyeen inay awood ciidan oo ay ku muquuniyaan xukunkooda balse waxaa xilligan keliya la filayaa in ay suuro galaan. horey waxaa u suuro galay hal dal oo ah Eritrea siyaasa Afwerki oo ah keligii taliye halka sidoo kalena Abiy uu doonayo sida siyaasa Afwerki oo kale inuu dadkiisa u xukumo balse Farmaajo oo arrinkaasi cashar badan ka bartay waa ay u socon weysay sida dhinacyo badan ay xilligan xaqiijinayaan. arrimaha sidoo kale Ethiopia lagula heshiiyey ee dhanka Soomaaliya iyo weliba waxa ka soo baxaya waxaa lagu sifeeyey in 5 dekadood oo Soomaaliya ka mid ahi iyagu ay markaa maamulaan sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay ku garab istaagaan wax walba oo iyadu markaa khatar gelin kara in markaa garab istaag loo muujiyo. tii ayada ahaydna waa socon weysay balse heshiiskaasi waa horey heshiis markaa loo wada galay. hase yeeshee xaalku waa adag yahay. xogahaasi ayaynu doonaynay in aan caawa si toos ah idinkula wadaagno. daawadayaal muuqaalka noo sii sheergareeya sidoo kale waxa aad rukumataan bogga Facebooka ee muuqaal duubaheena Maxamuud Siciid Axmed oo aan rajaynayo in aad halkaasi ka faa'iidi doontaan sheekooyin la xiriira arrimaha Ethiopia oo maalmihii dambe si xog ogaal ahi loogu qorayo. waad ku mahadsantihiin muuqaalka noo sii sheergareeya tan iyo kulankayga dambe nabadgelyo amaan Allah.